والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد dadka muslimiinta oo waxa weeye maartay kilibkan daawan doona waxaan raadsanaynaa guud ahaan waxa weeye dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta uu gaari doono maqalkan iyo muuqaalkan in waxa weeye ninkaas walaalkeena oo dhibaataysan in la caawiyo oo waxa laga qayb qaato waxa weeye dhibaatadaas ka cabanayo oo u tabar waayay inagu dad muslimiin aan nahay dadka muslimiintaana maaragtay waa isku tiirsan yihiin ilaahay subxaanahu wa rasuulka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ilaahay adoonka ayuu kaalmaynayaa oo kaalmihiisa uu ku jirayo danihiisa uu qabanaya ilaa goorma ma kana al-abdu fi auni akhihi ilaa qofku waxa walaalkiis waxa way maaragtay dhibaataysan uu dhibka la qaybsanayo oo uu kaalmaynayo wax la qabanayo ilaahay asagana waxa uu kaalmeynaya marka in haduu rabo qofku in ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii asaga ka bacsan uu hagaajiyo ilmihiisa uu hagaajiyo dadkiisa caafimaadkiisa waa inuu dadka dhibaataysan waxa dhibaatada uu la qaybsado nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo xadiis kale maarid ku leeyahay ahabba an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas dadka waxa ilaahay loogu jecel yahay oo alla ugu jecel yahay dadka anfa'uhum lin-nas qofka waxa weeye maaragtay dadka maaragtay ugu nacfi badan oo ugu waxtar badan qof walba qofku dadka uga waxtar badan yahay oo waxa weeye dhibaatada kala qaybsan og yahay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waa jecel yahay haddii marka aan rabno waxa weeye maaragtay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina jeclaado ilaahay inuu danteena waxa noo qumiyo waxa loo baahan yahay inaan waxa weeye dadka muxtaajiinta oo dhibaatadu hayso ilaahay waxba uma waayin inaga ayaa layna ku imtixaanaya waa ibtila marka ibtilahaas inaan waxa weeye saa u garanno oo aan waxa weeye dhibaatadii aan waxa weeye la qaybsano nusuusta arintaas sheegaysana way fara badan tahay marka waa dad isku tiirsan baan nahay ilaahay marka wuxuu inoo ku naxariisanayaa inaan dadka waxa u naxariisano inma yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama ilaahay wuxuu u naxariistaa adoomadiisa kuwa waxa dadka u naxariista marka waxa leena ka rabaa walaalkaas waxa weeye maaragtay xanuunsan oo dhibaatada ka sheeganaya oo xanuunkiisa waxa weeye inta uu hadda sheegay 17 sano uu la rafanayay oo meel kasta uu tagay oo maaragtay uu waayay dhaqaalo in aan waxa weeye maaragtay kaalmaheena iyo gacanteena ayuu u baahan yahay in marka waxaan ka codsanaynaa dadka waxa weeye maaragtay hadalkeena dhageysanaya in waxa walaalka loo gurmado wixii maaragtay qof dhiba dad badan waxba kama dhima hadii qof kasto ina kamida oo muslina uu kaalintiisa qaato wax weyn ma ahan waxa weeye maaragtay ninkaas waxbaan tari karaa marka walaalayaal waxaan ka codsanaynaa in waxa weeye maaragtay loo naxariisto walaalkaas oo waxa loo gurmado oo waxa gacan la siiyo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala arintaas aan maaragtay ajir kaga raadino oo maaragtay ajir aan kaga dalabno ayaa loo baahan yahay wax weyn ma ahan insha Allah waxaan maaragtay aad iyo aad u rajaynayaa in aad waxa uu soo gurmad doontaa walaalkaas ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu caafiyo asagana inuu caafiyo inagana dambigeena waalidkeen uu dhaafo una soo duceeya intaasaan oran lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن هالكان كسلامنا أمد إسلام كا ميل الله أي ميري جوكتو كارهان أمد الصوماليات وعن ويسين إن كليب كا عن كدو إنه وكهاللية نكا حنوسن وسور كيس وماشي يلا مدة دان تدبيت وان كسنانة حنوسنا حنون كاسي meelo badan baa la maray oo Soomaaliya Itoobiya dhaqaatiirtii ugu dambeysay oo Itoobiya ugu khibrad badan kuwa Soomaaliya ugu khibrad badan ay ka shaqeyn jiray sida isbitaalka Shaafi oo baaritaan ku sameeyay iyo Turkiga waxa la isla raacay in wadanka Soomaaliya waxba looga qaban karin maadaama dhibaatada iyo burada ku taala ay tahay burooyinka faafa oo soo noqnoqda arintaasi dhaqaatiirtii waxay isla raaceen in uu baahan yahay ninkaasi dhakhtar caalami ah iyo qalab caalami ah inta bacdigeed waxaan ka codsanaynaa ummadda islaamka mar labaad iyo mar saddexaad gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba arinta ninkaas
walaalkeena inaynu u gurmano oo wixii aan u qaban karno aan u qabanno haddii ilaahay yidhaahdo. ninkaasi waa dhibaataysan yahay. qofka islaamka ah qofka kaloo islaamka inuu u gargaaro waa xaq. inaguna islaam baynu nahay, almuslimu akhul muslim. marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba oo ku celcelinaynaa ninkaas hawshiisa walaalkeena oo xanuunsan ciddii kilibkaas uu gaaro inay si degdega uga soo jawaabto haddii ilaahay yidhaahdo. intaas aan idinku codsanaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillahi raxmaani raxiim. magacayga waxaa layihahdaa maxamed axmed maxamed. waxaan jiranaa muddo tiro badan oo xanuunkaani hayay ilaa 17 sano muddo aba xanuunkaani hayaa. waxaan kala kulmay Ethiopia inaan mar tago oo muddo dhowr sano aan ku maqnaado. waxayna yidhaahdeen waxba xanuunkan kama qaban karo maadaama buroodan ay tahay burada tarmantay yidhaahdeen oo burooyin badan jirkaaga ku jiraan. waxaad u baahan tahay dhakhtar banaanka ah. sidaa dabadeed hadda muddo kabacdi waxaa la dhakhaatiir ayaa waxay timid Soomaaliya iyo Muqdisho Turki ah. waan tagay, waa la xiriiray, sidii bay raaceen. waxay yidhaahdeen waxba kama qaban karo, buradan waa buro taranta. jimsigeygana hadda meelo badan bay kaga jirtaa. waxaa kamid ah hadda tunka oo kale. halkan waad aragtaan, tan waa 2 xabo oo isa saaran. sidaa daraadeed waxay yidhahdeen Soomaaliya iyo Ethiopia labadaba waxay yidhahdeen waxba kama qaban karo arrintan, sababtay tahay buradan waa buro taranta. haatanna taranteedu way badan tahay. haddii haatan wax laga qaban lahaana way soo noqonaysaa. sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay banaanka. anna qof banaanka itaal aan ku aado haya ma ihi. dadka walaalaha iyo islaamka meel ay joogaanba waxaan ka codsanayaa in la caawiyo. sidaa daraadeed dhaqaalahan banaanka ku aadana ma hayo, itaal aan ku aadana ma hayo. xanuunkaasina 17 sano buu hayay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.